ilaan hadda waxay sameeyaan beesadii Soomaaliya ka aruuriyaan dibadda u diraan ka Mozambique ka dagaalamay ka Nigeria ka dagaalamay tabarucaadka Soomaaliya laga ururiyo qaarkood loo geeyaa gaar alqaacidada buuraha duurku jirta lacag Soomaaliya laga qaadaa gaarto kama fakti hore waa ka imaan jirta lacag hadda teenaal loo qaadaa loo geeyaa madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud maalmo uu ku sugnaa wadanka Turkiga waxa uu kulan la yeeshay dhigiisa wadankaasi waxayna ka wada hadleen sii xoojinta xiriirka labada dal iyo sidii iskaashi buuxa looga yeelan lahaa arrimaha guud ee u dhaxeeya dhinacyada inta badan markii laga soo tago in ay ka wada hadleen iskaashiga buuxa ee dhinacyadu leeyihiin oo la sii hormariyo halkaasna laga sii amba qaado qodobka ugu muhiimsanaa waxa uu ahaa dhul ay safaaradda Soomaaliya ka heshay wadanka Turkiga kaasi oo ahaa ama ku qotamay in safaaradda la siiyo si ay dhulkaas isaga ah ugu shaqaysato amaba ay u dhisato dhawaan ayayna safaaradda Soomaaliya sheegtay in ay arintaas iyada qaban doonaan amaba ay ka shaqeyn doonaan hadaba markaas amaba intii uu Xasan Sheekh Maxamuud joogay halkaas waxyaabo kala duwan ayaa soo baxay waxa ugu muhiimsanaa waxa uu ahaa in madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud uu cadeeyay isagoo la hadlayay ciidamada tababarka u jooga halkaasi caqabadaha iyo dhibaatooyinka kala duwan ee kooxda Al-Shabaab ay ku hayso Soomaaliya sida uu isagu sheegay kooxda Al-Shabaab ayaa lacagaha canshuuraha ah ee ay ka qaado gudaha Soomaaliya u dirta dalalka Mozambique iyo Nigeria sida uu shaaciyay madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud oo khudbad u jeedinayay ciidamo kamid ah kuwa lagu tababarayo wadanka Turkiga kuwaasi oo la doonayo inay qayb weyn ka qaataan dagaalka lagula jiro xarakada Al-Shabaab madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud waxa uu sheegay in lacagahaasi ay kooxda Al-Shabaab ku maalgeliso kooxaha argagixisada ee ka dhisan dalalka Mozambique iyo Nigeria si ay u sii wadaan falalka arxan darrada ah ee ay ku hayaan dadkooda shacabka ayuu yiri lacagta ay Soomaaliya ka aruuriyaan ayay dibadda u diraan Mozambique iyo Nigeria kuwa ka dagaalama tabarucaadka lagu aruuriyo Soomaaliya ayaa loo geeyaa halkaasi si loogu sii hormariyo arrimaha xagjiriinta lacagta waxa ay ka imaan jirtay hadda teena loo qaado oo la geeyay ayuu yiri halkaas kuwa dadka shacabka maalin walba laga aruuriyo halkaasna loo qaado sida uu sheegay Xasan Sheekh Maxamuud sidoo kale waxa uu sheegay in dawladdu ay qorshe ka leedahay sidii looga soo afjari lahaa meelaha kala duwan ee Al-Shabaab ay ka hesho lacagaha baada ah ee ay ku maalgeliso ama ay ku bixiso arrimaha ku saabsan falalka argagixisada hadii gudaha Soomaaliya noqon lahayd ee dibadda noqon lahayd kuwaasi oo loogu yeero zakawaadka iyo canshuuraha waa in aan soo xirno tuubooyinka dhaqaalaha ay ka helaan marka la fiiriyo ka dekada u jooga baadiyaha u jooga ee zakada u aruuriya ka aruurinaya tabarucaadka jidadka waa in aan gacanta ku dhigno waxaasi oo dhan oo ay noqdaan arrin la xakameeyay ayuu yiri madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud madaxweyne Xasan ayaa waxa uu carabka ku adkeeyay in dawladdiisa ay ka go'an tahay sidii ay dhan walba uga adkaan lahayd kooxda Al-Shabaab oo sanadihii u dambeeyay ku xooganaa gudaha Soomaaliya kuwaasi oo waliba falal kala duwan maalin iyo habeen sameeya ninkii ka tanaasula fikirka argagixisada ee Al-Shabaab ee ka tanaasula in uu dhiiga Soomaaliyeed daadiyo qirtana in uu qaldanaa oo uu dadka Soomaaliyeed cafis weydiisto wiil Soomaaliyeed weeye waana soo noqonayaa waana naga tirsanaanaya oo dadka Soomaaliyeed iyo bulshada ayuu ka mid ahaanayaa ayuu yiri madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa ololihii doorashada waxa uu ku galay qodobo dhowr ah oo la xiriiray arrimaha ay ku saabsan sidii looga adkaan lahaa kooxda Al-Shabaab waxa uu sheegay in ay dadaal xoogan u gali doonaan sidii wadanka looga xoreyn lahaa arrimaha amniga ayuu ku sheegay waxyaabihiisa hortabinta sidaas la mid ah ra'iisul wasaarihiisa ayaa waxa uu sheegay in ay muhiimad gooni ah siinayaan arrinta la xiriirta la dagaalanka Al-Shabaab
iyo sidii wax looga qaban lahaa arrimahaasi. Haddii ay Xasan Sheekh Maxamuud iyo ra'iisul wasaarihiisu tallaabooyinka kala duwan ee ay sheegeen inay ka qaadayaan dhinaca al-shabaab ay ku guuleystaan, ayaa waxay noqon doontaa mid si weyn loogu xasuusan doono, maadaama shacabka Soomaaliyeed ay noloshooda iyaguba dhacsan lahaayeen haddii ay haystaan nabadgelyo buuxda oo si xorriyada ay ugu naaloodaan meel kastana ugu maraan iyaga oo jooga wadankooda, amaba marka ay imanayaan ayna ka baxaan caqabadaha kala duwan. Sidoo kaleeto ganacsatada iyo dadka shacabka ee xoolaha leh miyiga ku nool ayaa iyaguna sanadihii ugu dambeeyay caqabado kala duwan kala kulmayay kooxda al-shabaab, kuwaasi oo dhibana u ahaa xoolo laga qaado, kuwaasi oo baad ay ku sheegtay dowladda Soomaaliya iyaguna ay u yaqaanaan zakawaad, taasi oo haddii iyadana aan la soo afjarin xitaa ay adkaan doonto ganacsigu in uu sii socdo. Dadka loo magacaabo wasaaradaha gaashaandhigga iyo amniga ayaa taasi saameynta ugu weyn ku yeelan doona, ama muhiimadda koobaad ay noqon doonta. Haddii ay dowladda Soomaaliya qorshayaashaasi iyo arrimaha hortebinta leh ee amniga wax ka qabato, waxa ay noqon doontaa mid ka mid ah waxyaabaha ugu muhiimsan oo xitaa lagaga bixi karo doorashadan ay ku rafaadeen dadka Soomaaliyeed sanad walbana khilaafaadku ka dhasho, caqabadaha kala duwana ay ka yimaadaan ee lagu qabto afisyooniya doorashada dadban loo bixiyay. Dowladda Turkiga ayaa sheegtay inay kaalin weyn ka qaadan doonto arrimahaasi oo sanadihii la soo dhaafayba ay ka shaqeynayeen. Imaaraadka Carabta ayaa iyaguna sheegay si geesinimo leh oo aan kala har lahayn inay ugala shaqeyn doonaan sidii argagixisada wax looga qaban lahaa dowladda Soomaaliya, oo ay ka xoreyn lahaayeen wadanka uguna guuleysan lahaayeen tallaabooyinka kala duwan ee ku aadan dhinacaas iyo la dagaalanka. Dowladaha Khaliijka iyo sidoo kaleeto Turkiga iyo kuwo kaleeto oo caalamkiiba waxay dhammaantood xilligan door bidayaan in ay xiriir wanaagsan la yeeshaan dowladda Soomaaliya, sida ay sheegeen, si ay qayb uga noqdaan xiriirka iyo weliba wada noolaanshaha iyo danaha kala duwan ee ay leeyihiin ay fursad ugu helaan. Waxay dhammaan arrimahani ku soo aadayaan xilli maalin walba caqabado kala duwan caasimadda Muqdisho oo dowladda federaalka meesha kaliya ay sida tooska uga talisa ay dhibaatooyin kala duwan ka dhacaan. Taliska ciidanka nabad sugidda ee gobolka Banaadir waxa ay ku baxeen dhacdo ka dhacday magaalada Muqdisho kadib markii laga warhelay in guri ay la wareegeen maleeshiyad hubeysan, iyada oo ciidankii qabsaday laga saaray gurigaasi. Gurigan oo ku yaala degmada Cabdicasiis ee gobolka Banaadir ayaa waxaa ka taagnaa muran salka ku haya milkiyadiisa, waxaana shalay xoog looga saaray qoyska Maryan Isxilqaan. Ciidan uu watay taliyaha nabad sugidda gobolka Banaadir Muxyidiin Warbaac ayaa gaaray guriga, waxaana laga saaray ciidankii qabsaday oo qaab qabiil u abaabulaa, sida ay sheegeen nabad sugiddu. Maryan Isxilqaan oo ah agaasimaha arrimaha bulshada ee xafiiska ra'iisul wasaaraha ayaa degan gurigaasi la isku haysto, waxaana ku maqan tahay dalka dibadiisa. Jawaahir Baarqab oo ah gudoomiyaha ururka haweenka gobolka Banaadir ayaa warbaahinta kula hadashay gurigaasi kadib markii laga saaray ciidankii qabsaday, waxayna sheegtay in Maryan ay caafimaad uga maqan tahay dalka Turkiga, ay ugu maqan tahay balse caruurteeda ay degan yihiin guriga xilligan. Maamo Jawaahir ayaa cadaysay in hay'adaha ammaanku ay ku soo baxeen arrintan, isla markaana ciidankii qabsaday laga saaray guriga iyadoo uusan dhiig ku daadanin. Hay'adaha kala duwan ee dowladda Soomaaliya iyo laamaha ammaanka ayaa maalin walba isku farasaara gudaha magaalada Muqdisho, kuwaasi oo aragtiyo kala duwan ka qaba arrimaha la xiriira amniga iyo weliba hanaanka oo aad moodo weli sidii loogu talagalay inuusan u abaabulay.